Assalaamu calaykum asxaabtayda qaaliga ayay ku soo dhawaada video cusub. Videogaas oo ku saabsan sida WhatsApp-kaada uga dhaliili lahayd daatooyinka iyo waxyaabaha ka buuxinaya. Saan ogsoonahay markaad muddo badan isticmaasho WhatsApp-ka wuxuu sameynayaa daato uu ku kaydinayo daatadaas oo keeni karta inuu taleefanka buuxsamo. Haddaba maanta waxaan ku tusayaa saad iskaga dhaliili lahayd daatada saysan taleefankaaga ka buuxin. Haddaba walaal markaa WhatsApp-kaaga u soo furatid waxaa ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay saddexda dhibcood. baad halkaas ku dhufanaysaa setting baa ku sii dhufanaysaa. Ka bacdi hoos baa ugu soo jiidaysaa waxaa ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay data and storage uses. marka halka ku dhufatid ka bacdina waxaa ku sii dhufanaysaa network using. halkaas oo ay kaaga soo baxayso wax walba waxyaalihii isha taleefanka ka buuxinayay daatadaadu isticmaashay. saad aragtay hadda media wuxuu isticmaalay 37 KB waxaan si waaweyneen. message-ka wuxuu isticmaalay 152 waa waxyaalaha hadda si waaweyneen weeye gaaniga isticmaashay. laakiinse marka WhatsApp-ka muddo badan isticmaalaysid waxaan way isgaargaarayaan waxayna noqonayaan wax aad u tiro badan ka bacdina taleefanka ka buuxsamaya. haddaba inuu taleefanka ka buuxsamo uga hortagtid waxaa ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay reset. meesha ku qoran tahay waa ku dhufanaysaa ka bacdina waxaa dhahaysaa reset. saasayna waxyaalihii kaaga tagayaan reset baa ku dhufanaysaa. hadda waxyaalihii dhan zero isku bedelaan soo ma aragtid. marka waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysatay casharkan. fadlan haddaadan kusoo biirin channelka Bagaag Production fadlan walaalkayga qaaligayow kusoo biir. annaguna waxaan kuu ballan qaadanaa inaad naga hesho casharo badan oo ku anfaca. marka fadlan kusoo biir channelka adoo taabanaya calaamadda subscribe saa noo dhiirigelisid. annaga haddaan nagu soo biirtid annaga dhiirigelin bay noo tahay oo waxaan soo duubanaa casharo badan oo waxaa arkaynaa dadku inay jecel yihiin. marka walaalkayga qaaligayow waan kaaga mahad celinayaa daawashadaada. subscribe-tan ha ilaawin. aad ayaa u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum.